السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كينا يوليبا موقال عصب موقال كينا وحنكو ايجدونا خطرتا وينا كدالتا إن لعدايا شركة أبو حالو يقانو The Skin Bleaching about the Skin Lighting وقهورينتي هتان ايجنو دينهان وحاران وكلها حبيب كينا محمد عليه الصلاة والسلام. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. سدا أوجد وحين قنسا أبورت إلهي سبحانه وتعالى أتبتلسو وأنا تقنعن سد إلهي سبحانه وتعالى كو أبوري حتى سنديه وجدا به آد أيو بدنيا تدك استعمال هذا كريم ذا لسكو عديو هاتي نقطه ويلل يكبدو هلك يكبدو كاستعمالنا بقول كبشن يسيديتن أيو يقو نقنيان ترضى وجبدا أم بريد كوجبدا استعمال كريم ذاس haddaba ugu horeyntii inan yahay maskaxdaada ka saar fikirkii qaldanaa ee ahaa cidda ku guursamayso haddaad leedahay maqaar madow amba midab madow. No one will marry you if you have dark skin. sanadkii 2020 ayay dadku ku fangareeyeen kariimada la isku cadeeyo lacag dhan 8.6 bilyan waxaana la rajaynayaa inay gaadho 12 bilyan 2027. haddaba xogag badan oo la baaray 2021 ayaa sheegaya in ka badan 57% ay isticmaalaan qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Nigeria. sidoo kale dalalka kale soo raacay waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya iyo wixii la midka. halka 40% ay isticmaalaan Kuuriyada Koonfureed kariimadan la isku cadeeyo. ugu dambeyntii xagga 50% ay isticmaalaan dalka Hindiya oo noqonaysa kala badh dadweynihiisu inay isticmaalaan kariimadan la isku cadeeyo. haddaba caafimaad ahaan haddaan eegno kariimadan jirka lagu cadeeyaa halis weyn ayay ku keenaan maqaarka iyo gebi ahaanba jirka. maqaarku wuxuu inoo taraa wuxuu inaga dufaacaa jeermiska iyo weliba qoraxda cadceedka saa'idka. sidoo kalena jirku ka neefsadaa isagoo qashinka dibadda uga saaraya. sidaa awgeed kariimadan la isku cadeeyaa waxay weeraraan maqaarka shaqada inoo qabanaya gaar ahaan milaniinta waana halka go'aamisa maqaarku iftuunku qaadan karo. milaniinta waxa sameeya unugyo la dhaho melanocytes. haddaba kariimadan la isku cadeeyo waxa ku jira maado la yiraahdo hydroquinone taasoo yareysa soo saaridda unugyada melanocytes. sidoo kale kariimadan la isku cadeeyo waxa ku jirta maadada mercuryga iyadoo dhaawacda neerfiska, dheefshiidka, difaaca jirka, wadnaha iyo weliba maqaarka. mercurygu waxay keentaa ilowgaaga bata dawakhaad badan iyo weliba madax xanuun joogto ah. ugu dambeyntii mercurygu waxay keentaa murqahaaga oo jilca, neeftoo kugu adkaata iyo weliba kaliya xanuunada kale ay keenaan kariimada la isku cadeeyo waxaa ka mid ah maqaarkoo jilca awoodi waayana inuu iska difaaco jeermiska, xididada jirka oo soo muuqda oo khatar weyn ugu jira inay wax noqdaan, nabarada hore u bogsan waaya iyo weliba ugu dambeyntii kansar ku dhaca maqaarka oo kaasoo ku noqda kansarka ku dhaca diirka badda skin cancer. ugu dambeyntii haddaan eegno dhaqaalahaan khasaaro weyn ayay ku ridaan cidda isticmaasha kariimadan la isku cadeeyo iyagoo kharash badan kaga baxo soo iibsashada joogtada ah. waxanuuna ayay ku keenaan kariimada ay isku cadeynayaan. taladii ugu dambeysay waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey ku qanacsanow oo ugu mahadnaqa nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u gafin. muuqaalkeenii maanta halkaas ayuu noogu eegay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.